السلام عليكم. iska warrama waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin. maanta ama caawa kulba kay ku tahay waxaan doonayaa inaan soo bandhigo isla markaana aan falaqayn kooban ku sameeyo barnaamijka ciwaankiisa kor ku soo aragteen ku soo dhawaada. sidoo kale intiinaan ogeyn page-kayga Facebook-ga waxaan rajeynayaa inaad followda dhac ku soo siisaan insha Allah. aad baa u mahadsantihiin. weligaa ma isweydiisay sababta dadka qaarkood ay u yihiin kuwa mar walba faraxsan, kuwa mar kasta murugsan oo xidhxidhan, iyo kuwa kale oo aan farxad iyo murug midna ku sugnayn. sidoo kale ma isweydiisay maxaa kala duway dabciga bini'aadanka? maxaa loo arki waayay dad isku dabci ah sida muuqaalkooda uu mararka qaar isku mid u noqdo ama loo yiraahdo hebel iyo hebel way isu eg yihiin ama hebelow maanta qofku eeg baan arkay? maxaa loo heli waayay dad sidaas oo kale isku dabeecad ah oo habdhaqanka iyo dabeecadda iyo meel kasta iska shabaha sida muuqaalka guud ee dusha bay iska shabahaan? su'aalaha ugu badan ee qofku naftiisa uu weydiiyo kuwan ayaa ugu badan. waxa kale oo iyana soo raaca kuwa la xiriira cilmiga qaybka sida aakhiro, jannada iyo cadaabta iyo wax kasta oo ay adag tahay in la suuraysto. aragtida shakhsiyadda ama personal theory-ga waxa loo yaqaano waxa iska leh aabaha cilmi nafsiga casriga ah ee lagu magacaabo magaciisa Sigmund Freud, kaasoo noolaa qarnigii 20aad. asal ahaanna u dhashay dalka Austria markii dambena qaatay dhalasho Ingiriis ah. aqoontiisa rasmiga ah waxay ahayd cilmiga neerfaha ee neurology-ga loo yaqaano, waxaana uu ahaa dhakhtar aqoon badan u leh xanuunada neerfaha. taasina waxay dhaxal siisay inuu wax ka ogaado oo darso waxyaabaha sababa dhibaatooyinka maskaxda marka laga yimaado dhaawaca dibadda kaga yimi. waxaa la xusaa inuu maalin la kulmay qof ka mid ah bukaanadiisa, kadibna ay ku dhalatay fikradda ah inuu wax ka darso cilmiga nafta. sidoo kale waxaa la sheegaa inuu carruurtiisa ku tijaabin jiray tijaabooyinka cilmi nafeedka maadaama aanu fursad u helayn inuu cid kale helo. sidaas awgeed hadda waxaa loo aqoonsan yahay asaasaha cilmi nafsiga casriga ah ee modern psychology loo yaqaano. dhanka kalena wuxuu caan ku yahay aragtida maqnaanta iyo joogitaanka maskaxda ee conscious mind and unconscious mind. waayahay af Soomaali ahaan ma jiraan ereybixinada aynu hayno ereyada badanaa la xiriira cilmiga bulshada sida cilmi nafsiga, cilmiga bulshada iyo arrimaha maskaxda, maadaama cilmigan bulshadu uu yahay mid ku cusub gayigeena. sidaa darteed ereyada waxaynu ku sheegaynaa afka ay cilmi ahaan ku yihiin. ugu horreyn aragtiyaha shakhsiyaddu way badan yihiin oo culimada cilmigan ku takhasusay qaarba dhan bay ka eegaan. tusaale ahaan qolo ayaa waxay ka eegaan dhanka deegaanka, qolo kale iyaguna waxay ka eegaan dhanka dhalashada qofka. haddaba aragtiyaha ugu caansan cilmiga shakhsiyadda waxaa ka mid ah aragtiyaha loo yaqaan introvert and extrovert oo macnahoodu yahay aragtida dadka bulshaawiga ah ee furfuran iyo aragtida dadka degan ee aan daddexgalka lahayn. dhammaanteen waxaynu markhaati ka nahay inay jiraan asxaabteenna kuwo aad u hadal badan, kaftan badan oo bulshaawiyiin ah isla markaana daddexgal leh. sidoo kale waxaynu leenahay asxaab badan oo degan, afgaaban oo aanay dadka si fudud isu baran. labadan aragtiyood waxaa lala xidhiidhiyaa siduu qofku ku soo barbaaray, cidda barbaarisay iyo meesha uu qofkaasi wax ku soo bartay. oo waxaa la yidhaahdaa qofka bini'aadanka ah 3 wax ayaa saamayn ku leh dabcigiisa iyo shakhsiyaddiisa, waxaanay kala yihiin deegaanka uu qofkaasi ku nool yahay, meesha wax ka bartay iyo guriga uu qofkaasi ku soo barbaaray. haddaba aragtiyaha kale ee ugu muhiimsan shakhsiyadda waxaa ka mid ah aragtiyaha uu saynisyahankani ku magacaabay id-ego and super-ego. aqoon-yahankani wuxuu xusay in dhammaan aragtiyaha ka soo dhambalmay bilowga markuu ilmuhu dhasho ee uu gaadho 2 sannadood. haddaba id waxay ka turjumaysaa qaanuunka farxadda ama wixii uu qofku ku xasilo oo cilmi ahaan loo yaqaano pleasure principle. qof kasta oo bini'aadanihi wuu ku soo dhashaa marxaladdan oo waxa aynu markhaati ka nahay in ilmaha yari uu ku ooyo wax kasta oo uu arko mana aamuso ilaa waxaas uu jeclaaday laga siinayo. sidoo kale ilmaha yar haddii wax kasta oo uu doonayo laga yeelo dabadeetna uu marxaladdaas ku weynaado kadibna isagoo 10 jira uu ku ooyo wuxuu doonayo. dhanka kale qaybta id loo yaqaano wuxuu kala siman yahay xayawaanka oo kaliya ay maskaxdooda ku jirto wax cunid iyo wax cabid. waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaynu aragnay dad waaweyn oo u dhaqmaya sida carruurta. taasna waxaa loo aanayn karaa iyagoo aan qaadan waqti ku filan oo ay marxaladdan kaga gudbaan. marxaladda id loo yaqaano kaliya waxay qaabilsan tahay in kaliya ilmaha yar ay shaqaynayso qaybta ka turjumaysa baahidiisa nafeed oo afka qalaad loo yaqaano biological needs. waxaana tusaale wanaagsan inoo ah ilmaha yar markuu 4 jir gaadho wixii loo sheego wuu aqbalayaa, oo haddii waxuu maaga ama uu doono kadibna la yidhaahdo lacag ma hayno wuxuu xaqiiqsanayaa inaanu waxaas loo iibin karin ama aanu hadda heli karin. marxaladda kale ee qofka bini'aadamka ahi maro waa marxaladda loo yaqaano ego
waana marxaladda ugu muhiimsan ee la yiraahdo aad bay u wanaagsan tahay in qofka bini'aadanka lagu barbaariyo intaanu qaangaadhin. badanaa qaybtani waa qaybta ina barta xaqiiqada oo afka qalaad lagu yiraahdo reality principle. marxaladani maaha mid jiraysa ilaa qaybta hore ay dhiiga loo yaqaano aanu qofku soo marin. qaybtani waa qaybta inoo sheegta inaynu wax isweydiinno, wax isbarbar dhigno. tusaale ahaan ilmaha yar haddii loo sheego sababta wax loogu diidayo wuu ka joogsadaa. badanaa Soomaali ahaan qaybtan in badan waynu ka ilownaa carruurta. in badanna waxaad arkaysaa waalid ilmihiisa ku leh aabbo ama hooyo waxaasi waa ceeb, laakiin cidina uma sharaxdo waxay ceebtu tahay ama in sharaxaad laga siiyo sababta ay waxaasi ceebta u tahay. haddii qof waalid uu mawduuceenan daawanayo, waxaan kula talinayaa inuu ilmaha u sharaxo markuu ku leeyahay waxaasi waa ceeb aabbo ama hooyo, sababta ceebtan inuu raaciyo ama sababta waxaasi ceebta ku noqotay aynu ka gudubno. dhinaca kale qaybtani waa marxalad cajiib ah taasoo ilmuhu isku dayayo inuu isagu iskii u xalliyo falka uu sameeyo. carruurtu waxay dareemaan in falka ay sameeyaan uu dembi yahay, sidaas awgeed waxay isku dayaan inay qariyaan falka ay sameeyaan inta badan. haddii aan tan laga gaadhin, ilmuhu wuxuu baranayaa beenta. sidoo kale ilmuhu wuxuu ka fikiraa haddii uu waxaa sameeyo maxaa ka dhalanaya, waxaana badanaa loo yaqaanaa reasoning ama wax isweydiinta iyo sababaynta. waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inay ubadku waqtigan ay ku jiraan marxalad aad u adag. waxay aad ugu heelan yihiin inay wax badan ogaadaan, oo waxaynu aragnay iyagoo waxyaabo badan jajabinaya maxaa yeelay waxay rabaan inay ogaadaan waxa ku dhex jira. waana sababta carruurta loogu sameeyey qalabka ay ku ciyaaraan ama caruusadaha yaryar. ugu dambayntiina in badan waxay indhaheennu qabtaan dad aamusan oo aan hadlin, oo badanaa keligood iska socda, iyo kuwo kale oo kaftan badan isla markaana qosol badan. culimada cilmiga naftu waxay asteeyeen in dadka noocan ah luqadda cilmi nafsiga looga yaqaano extrovert iyo introvert, oo inta badan aragtiyahan waxa aad looga eegaa dhanka ganacsiga iyo la tacaamulka macaamiisha. badanaa aragtidan waxaa daliishada aqoon-yahanada cilmiga ganacsiga. sidoo kale buugaagta ka sheekaynaya habdhaqanka ururada ee organizational behaviorka la dhaho. sidoo kale iyaguna waxaa muhiima inaynu diiradda saarno in qofka bini'aadamka ah marka uu dhasho uu ka dhigan yahay xaashi cad oo aanay waxba ku qornayn, keliya waxa ku qormaya oo ku sawirmaya sida ilmaha cusub loo ababiyo. culimada ka faallooda arrimaha carruurta iyo qaab korniinkooda ayaa waxay warinayaan in qofka bini'aadanka ah ay 3 wax saameyn ku leeyihiin korniinkiisa maskaxeed iyo aqooneed. aqoon-yahanadu waxay sheegeen in qofka ay saameyn weyn ku leeyihiin guriga uu ku koro, deegaanka uu ku nool yahay, iyo goobta uu wax ku barto. intani haddii ay hagaagaanna waxaa hagaagaya oo isbeddel muujinaya ilmaha yar. isbeddelkaasi wuxuu noqon karaa mid taban iyo mid togan labadaba. dhanka kale in badan waxaynu maqalnaa hebel waa hebel oo halkaa taagan oo aan biyo ismarin. tani kama dhigna in qof hebel uu raacay hebel kale, ee arrimaha hiddaha waxa ka saameyn badan arrimaha uu deegaanku keeno. sidaas awgeed si shakhsiyadda qofku u wanaagsanaato waa in la hagaajiyo xidhiidhka qoyska, deegaan wanaagsan iyo iskuul iyo malcaamad wanaagsan. waxaad arkaysaa waalid intuu ilmaha soo kaxeeyo macalinka ka dacweynaya oo ku odhanaya macallin hebel wuu kibray oo waxba ma maqlo, wuu dhaga adkaaday garaac oo ganaax. ilmuhu tan wuu ku sii xumaanaya, wuu ku sii dhaga adkaanaya, oo macangad buu ku sii noqonaya iyo kuma wanaagsanaanayo. waxaanay runtu tahay inuu waalidku naftiisa u sheego ilmaha inuu isagu hagaajin karo, kadibna macalinka uu kala hadlo ilmaha in tarbiyadiisa uu indhaha ku hayo. deegaankuna saameyntiisuu leeyahay, laakiin dhammaan waxaasoo mas-uuliyada waxa tuurta u ridan kara waalidka. haddii qoyska uu ilmuhu ka soo baxaya uu wanaagsan yahay oo xasiloon yahay, isla markaana yahay qoys isaga u diyaara inay dhisaan, qayb weyn bay tani ka qaadanaysaa. deegaanku kaliya ma aha goobta uu qofku ku nool yahay, ee deegaanka waxaa ka mid ah tiifiyada, moobilada iyo tiknoolajiyadda. dhammaantood iyaguna waxay leeyihiin saameyn taban iyo mid togan labadaba. waxaanay xaqiiqadu tahay inagu Soomaali ahaan ma lihin hab barbaarineed oo ilmaha kaliya waynu dhalnaa oo waxaynu ka adagnahay cuntadiisa, laakiin ubadku waxay cuntada uga baahi badan yihiin in dhanka maskaxda laga quudiyo. Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa ninba intuu cuno ayuu ciidamiyaa, oo laga wado qof waliba wixii uu tabcado ayuu helayaa. ee aynu tacabno shakhsiyad wanaagsan, taasoo ina dhaxalsiinaysa dhaqan wanaagsan, aqoon dhisan iyo waxtaridda nafta iyo bulshadaba. nabadgelyo.